لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته waxa daraad ku geeriyooday magaalada Jigjiga wariyaha Axmed Xasan Cawke iyadoo lagu aasay magaalada ku dhashay ee Wajaale. Geerida Cawke ayaa raad ku yeelatay dhammaan qowmiyadda af Soomaaliga ku hadasha oo dhagahooda 40 sano u dambeeyay codkiisa maqlayeen. haddaba qaar ka mid ah qurba-joogta Finland ayaa tacsi u diray ehelkii iyo qaraabadii iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuumkaasi waxaana yiraahdeen raxiim anoo ah Axmed Ismaaciil Xullad halkan waxaan uga dirayaa tacsi tiiraanya leh oo naxdin lahayd Axmed Xasan Cawke oo aan leeyahay dhammaanteen samariya iimaan Allah inaga siiyo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkeena iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel kasta joogaan ilaahay waxaan uga baryayaa in meel khayr qabta jannatul firdaws ilaahay geliyo samariya iimaan ilaahay naga siiyo qaraabadiisii iyo xaaskiisina samariya iimaan ilaahay ka siiyo raxiim anigoo ah wakiilka Jubbaland u fadhiya dalka Finland waxaan halkan uga tacsiyadeynayaa aniga oo sidoo kale ku hadlayo magaca shacabka Soomaaliyeed iyo magaca ummadda reer Jubbaland wariyaheennii weynaa ee caanka ahaa Allah u naxariistee marxuum Axmed Xasan Cawke oo geeridiisa dhawaan ka dhacday Jigjiga waxaanu leenahay ilaahay naxariistiisa ha ka waraabiyo isaga iyo eheladiisina sidoo kale samariya iimaan ha ka siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan u tacsiyadeynaynaa Maxamed baan hoos tacsiyada manka ku dhintay Jigjiga la keenay Wajaale laga aastay xabaaliha aabihii lagu aastay wariyaha ahaa ninka wanaagsan magaca leh ahaa maaragtay nin weyn baa ka baxay reer waqooyiga Allah nuuro jannada firdaws Allah ka waraabiyo ilaahay idamkiisa sidaasaan ilaahay u baryeena kale bahda Home Cable TV ee dalka Finland ayaa tacsiita la mid ah u diray ehelkii iyo qaraabadii iyo wariyaasha Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday marxuumku Aadan Yuusuf Ismaan Home Cable TV Finland.